wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland Hinde Jaamac Gaani oo safar shaqo ku joogta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan la qaadatay isuduwayaasha laamaha dawladda iyo maamulka gobolka Togdheer. Kulankaasi intii uu socday waxaa lagu gorfeeyay halka uu marayo barnaamijka tayeynta iyo dib u habaynta shaqaalaha dawladda ee ay gacanta ku hayso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland. ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xaydaljir ayaa ka warbixiyay kulankani. maanta gobolka inoogu yimi wasiiradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo aan ahayn markii koowaad inoo timaado mar walba Burco u timaada horumarinteeda dadkeeda jilicsan shaqaalaheeda hawl kasta oo ay khusayso Burco qaybta koowaad ka qaata. waxay maanta markaa halkan u timi ay kula jirtay istuwayaasha gobolka iyo maamulka gobolka Togdheer iyadaana inoo faahfaahin doonta inaan ka hor dhaca dooni maayo hawlihii ay ka qabatay halkan. waxaan leeyahay wasiir ku soo dhawow waxaanu fulinay dhammaan awaamirtii iyo shuruucdii halkaan maanta noo keentay hadday tahay gobolka hadday istuwayaasha tahay hadday shaqaale weynaha gobolka tahay. wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland Hinde Jaamac Gaani oo dhankeeda halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixisay nuxurka safarkan shaqo ee ay ku timid gobolka Togdheer iyadoo ku dheeraatay dadaalada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland ay ugu jirto tayeynta shaqaalaha dawladda. Hinde Jaamac Gaani wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland waxay sidoo kale hoosta ka xariiqday lacag dhan 3,500,000 oo dollar oo la siin doono shaqaalaha hawlgabka ah ee ka soo shaqeeyay xarumaha kala duwan ee dawladda. safarkani waa safar shaqo waxaan ugu soconay laba arrimood. marka koowaad wasaaradda shaqagelintu waxay gudoomiye ka tahay steering committee-ga reformka shaqaalaha dawladda kaas oo muddadanba aad ogeydeen inay dib u habayn lagu waday iyo tayeyn shaqaalaha dawladda Somaliland. runtii wuxuu ahaa kulankani kulan xog waraysiya kaas oo aanu iskaga wareysanaynay muddadii uu hirgalay reformka shaqaalaha dawladdu muxuu soo kordhiyay maxaad tabanaysaan aad isleedihiin waxaa haddii lagu daro way ka sii wacnaan lahayd maxaad isleedihiin tacaddi bay idinku yihiin oo waxaad u baahan tihiin in la idinka daayo. dulucda iyo mucdu intaas bay ahayd. runtii intii ay jirtay xukuumaddan uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha qaranka mudan Muuse Biixi Cabdi waxa dalka laga sameeyay shaqo abuur badan oo aad u ballaaran marka laga bilaabo reformkii shaqaalaha dawladda oo ay ku shaqo galeen 2,000 oo muwaadin oo aqoon-yahana oo daafaha iyo dacallada jamhuuriyadda Somaliland kala jooga. gobol walbana intii uu xaq u helay lagu siiyay inuu ku tartamo dhexdiisa oo gobolada imtixaanka lagaga soo qaaday sida dhammaantiin marxaati ka tihiin. sidoo kale waxa la meermariyay barnaamijka shaqo qaran oo ay ka shaqo galeen 2,500 oo aqoon-yahanihi labadii sanadood ee 18 iyo 19. waxa la diyaariyay dhammaan siyaasadaha iyo xeerarka dabarka ku ah shaqo abuurka heli doonaan fursado shaqo isla markaana aynu abaal marin doonaa 3,500 oo muwaadin oo waqti dheer soo shaqeeyay halgankii xorriyadda dib loo soo noqoshadeeda iyo hubka dhigistii iyo horumarinta qaranka ee dhismaha dalka intabana ka qayb qaatay xaqna u leh in la nasiyo oo la abaal mariyo. wuxuu bilaami doonaa haddii ilaahay ka dhigo siyaasadii iyo xeerkii baa gabagaba ah wuxuu bilaamayaa oo dhaqan gelaya 2021 haddii ilaahay ka dhigo lacagta beeshinka la siin doona 3,500,000 oo dollarka Mareykanka ah waxay ku jirtaa akoonka banka dhexe ee jamhuuriyadda Somaliland ay leedahay waana mid xukuumaddu u diyaarisay. Shacib Xasan Dheere Sahan TV Burco.